Somaliland waxaa toddobaadkan ka bilowday diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka la filayo inay sanadka dambe ka dhacaan Somaliland. Diiwaangelinta ayaa ka bilaabatay in ka badan 160 goobood oo ku yaala gobolka Togdheer. Haddaba diiwaangelinta iyo arrimaha siyaasadda Somaliland waxaanu ka wareysanaynaa gudoomiyaha xisbiga u cid Faysal Cali Waraabe oo nagu soo booqday xarunta VOA ee Washington. sidee u aragtaa gudoomiye diiwaangelinta bilaabatay? Bismillahir Rahmanir Rahiim. horta waa bilow wanaagsan alxamdulillaah rabbil caalamiin laana waxa weeye furaha doorasho inay dhacdo waxa ka koowa ama mudnaanta koowad ah in dadka codbixiyaasha la diiwaangeliyo marka waxaan arkaa talaabo soo dhaweynaysa tahay si suurtagal uga noqon lahayd doorashadu 2017 hadii la yiraahdo waxaa jira cilado hore uga jiray diiwaangelintii hore loo sameeyay ma laga filayaa tanna in laga helo ciladahaasi horta mar kastaba ciladaha waxa sameeya waxa uu aalada wax Ilaahay sameeyay maaha wax bini'aadam sameeyay maaha maadaama bini'aadam sameeyay waan xumeyn karaa marka waxa naga xumeeyay dadka 2008 markii aan sameynay tii horeysay oo lacag badan naga baxday $12 milyan dadka xumeeyay aan marka doorkan horta qalab ahaan waan hagaajinay systemka marka lagu shaqeynaya waa sidkii hore ka duwan laakiin kulliba waxa weeyaan la ixtiraamo oo aan laga fikirin si wax loo khiyaameyn lahayn sidii wax wanaagsan u sameysmi lahayn in laga fikiro marka waxaan ku ogahay 199 aad iyo aad bay u fiican tahay ay systemkan u qaadan xisbigaaga yaa uga qayb galaya doorashada 2017 waxa jira musharax u taagan Jamaal ma furan tahay mise ma jiro qof dambe oo xisbiga iska soo sharaxi doona walaal arintaas waxa u taala anu shakhs baan golaha dhexe u taala insha Allah taala waxaan sameyn doonaa sanadka dhexdiisa shirweynaha shirkii golaha dhexe isaga u taala marka arintaasi waxay ka yeeliyaan laakiin wax naga go'an inaan xisbigu maanta ay waqtigiisa yahay sidoo uu guusha u gelaha labada xisbi oo labaduba maqaanaysa laba xisbi oo soo taliyeen midna ka soo taliyay baarlamaanka midna ka soo taliyay executive-ka inuu maanta xisbigu qaato doorashadan ay naga go'an marka taas waa arin u taala golaha dhexe shirkiisa taariikh ku dhaco xisbigaaga in dhawaalaba khilaafiya ka dhex taagna xagee marayaan khilaafyadaasi ma la xaliyay horta khilaaf aan mar madaga mas khilaaf ba taagan mar qora khilaaf ma taagnayn mar qora mar heshiis baa dhacay waxa weeyaan waxaan miiliyay ma boonbooninayay xisbi kastaba organization kastaba waa jiraa aragtiyaal kala duwan oo laga debate gareeya laakiin anagu wax madaxa aan isku dhufanay Jamaal amba waxaan ku kala tagnay intaan isku nimid isku afgan way ma jirto miiliyuhuma waxaan ka dhigay issue yada asxaabta kala doonaysa inay socod xumaan nagu rido maahaane marna khilaaf nagu ma jiro dhawaan ciidanka Somaliland waxay gaareen deegaanka Balacad halkaas oo uu kulan ka waday Cali Khaliif Galeer oo goboladaasi deegaan ahaan ka soo jeeda isla markaana madaxweyne ka ah maamul halkaas laga dhisay maxay ahayd sababta keentay in ciidamada Somaliland ay dhankaasi u ruuqaansadaan horta maamul iyo waxa la sheegsheego miidiyihiina especially wixii oo aan ku haysanayo waxa aad ba u boonboonisan arrimaha Cali Khaliif wadankani wadan mid quraaway isoo midaysan Soomaaliya la kulmay isoo midaysan buu dagaal galay isoo midaysan buu Ilaahay guushiisii isoo midaysan buu go'aankiisii 19 ku dhawaay dalkan wax khalaas ka wada oo doonay inuu fawdo rida lama ogola waxaan sameynay dumaraadii baan sameynay wala aragto qofka si mikrofon buu sitaa cid la caaburiyaa ma jirto qofku ra'yigiisa wadanka dhexdiisa iyo constitution sharciga laakiin yiri jabad baan sameynayaa oo kaloonta tuula fariisa oranaya waxaan ahay maamul baan sameynaya oo dhul la wada dago gaar u sheeganaya waxaan arnaa inay fawdo tahay ciidamada waxa saaran xil baa saaran difaaca qaranka inuu ilaaliyo ummadiisa waa in taariikhdeena ciidanka Somaliland halka jooga edebta u joogan wiligood xumaan laga soo sheegin marka Somaliland laakiin waxa ay sheegtay inay diyaar u tahay inay wada hadal la gasho Cali Khaliif markay leedahay waa la hadlaynaa dabcan muhiimaday siinayaan ama doorkiisa ahaatee ama deegaanka ha ahaatee marka ma waxa leedahay muhiim ma aha in la hadlo Cali Khaliif ma Cali wanaaba hadal ninkii wadaan oo ahaa ee dawladda ku qasbiyay Cali waa la hadlayaa احترام ونقص سميهاي أن أولي Somaliland شركة بالعجوي كي بورمو جوي والله هذا لكن وحاب ممنوعة عنصر تقالهن دولة بدول كده حسمية سيا Somaliya كتاعنا أنا روح أنا لسه كلينا وحصوح Somaliya بابي لكن Somaliland إن حق لو حساب تمو إن لقى ضوض Somaliya وحملا يالن كنا مثلا ما يالن كنا وأرهم فرن
laakiin inta tuulo fadhiistaan oranaya dadka lacag ka soo qoranaya khaatume isteed baan sameynaya wax suurtagal maaha yaan dadka been loo sheegin yaan lacagta laga qaadan yaan dumarka dahabka laga furan oo jabad maanta loo Soomaaliland ka abuursanaysa ma jirto marka caalan waxaan leeyahay oday weeye beeshiisa inuu dabgeliyo maaha in marka arto intaas oo dagaal ba ku socdo xukuumadda Soomaaliland waxay musaafirinaysaa dadka soo jeeda dalka Itoobiya gaar ahaan qowmiyadda Oromada u badan kuwaas oo la sheegay inaanay sharci ku lahayn halkaas sidee u aragtaa arintaas waddanka sababta af masaafirsan imisoo imaka masaafiri Obama oo waliba dadka u jajaban taqaanaysa oo guuraaga hadana waddanku sharci buu leeyahay Soomaaliya waa masaafiriya haddaan lahayn sharci ka Jabuuti ka yimaado waa masaafiriya haddaan sharci ku lahayn ka Itoobiya qaran baan nahay waa inuu qarannimada ilaalina wixii qaran sameyn lahaa yaan ugu ceebsanina laakiin dad ka shaqeeya oo xoog shaqo ayaa jira oo dhanka Itoobiya ka yimid oo magaalada ka shaqeeya ma waanay ahayn intii dawladdu masaafiris kaliya sameyn lahayd ilaa marba Itoobiya dhexdeedaba waa loo qaxay in la sameeyo qaab nidaam ah oo sharciga lagu siinayo dadka shaqaalaha ah oo deegaanka iyo dadku u baahan yihiin taas waa timka la bilaabay go'aanka soo baxay sharci la sameynaya qofku waa inuu sharci ku joogaa imaaraadka oo kale 100% waa ajnabi laakiin dad sharci bay ku joogaan sharci bay ku soo galeen marka imankan dawladnimadii ma hadda sameynayna in hor dawlad ma ahayn marka maalinba waxbaan sameynaa marka waxaan soo gaarnay in Somaliland citizenska iyo non citizenska la kala sooco amba af Soomaaliya ku hadlaya af Xamaar ku hadlaya marka taas waa process bilaabantay waa inuu taariikhdeena dawladda oo markii horeysa ku dhaqaaqeen waxaa jirta in dhawaan gudoomiyaha xisbiga wadanina waa uu sheegay in ay doonayaan in dib loo bilaabo wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland qaab sidee ah isleedahay waa ay haboontahay Somaliland iyo Soomaaliya wada hadalada hadda ma bilaabayaan waxa weeye labada dawladood doorasho geliyaan waa lame duck government baa weeye hadda waxaan ka shaqeynaa framework lagu wada hadlaha inaan wada shawrkii sameeyno framework ma kaanu sameeyno ayaa lagu wada dawladaha cusub oo hadli kara Xasan Sheekh waan kalomenay magaalada saaceen kalsoonidii ma ahayn la wadi karo wada hadal dawladiisani taayada waa dawlad qoreeda waan kalomenay si wax u wado maanu jeclaysan marka dawladaha dambe insha Allah taala ayaan doonaa anagu Soomaaliland dawladda dambe anagu midaysan road map leh in la fariisna laakiin hadda waqti la wada hadli karo waxa jira dhanka Soomaaliya waxa ka jira dood ku saabsan qaabka wax loo qaybsanayo oo ah in lagu saleeyo gobollo iyo in lagu saleeyo 4.5 sidee u aragtaa horta gobolladani waxa weeye gobolada ka dagaalamay waxa qariibana waa reer banaadirka oo si ay kursi u helaan wax kasta ogolaanaya 18 kan gobol waa 18 Soomaali ku isku dishay dalku 8 gobol buu ahaa buuga Maxamed Siyaad bare dadku isku dilaya waa kii laga dagaalamay haddana nabad la doonayo 4.5 ka imaka inta woman imanaya ha ku socdo waqti Kenya diiday Kenya constitution-kooda cusub waxay ku saleysay county-yadii Ingiriiska dhexdii markaas la ogolaaday 47 county bay noqotay maanta waxa weeye 60 gobol ku shaqeysa laakiin dadka la boobo oo marka waxa leedahay waa in lagu saleeyaa 4.5 waa kasaraha ayaa lagu sameeyay waxay ku hadlayaan dadka waxay mooyeen dadku in caamiyeen ba weeye waan adaan cadaalad imanna nabad iman mayso aad u mahadsantahay gudoomiyaha kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe oo nagu soo booqday stuudiyaha VOA ee Washington